gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Cabdirashiid Xirsi Dalmar ayaa xilkii u kala wareejiyay isuduwihii hore ee wasaaradda ganacsiga gobolka Sool iyo isuduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay sidoo kalena waxa xilkii loo kala wareejiyay maamulihii hore ee ganacsiga degmada Laascanood iyo mas'uulka cusub ee loo soo magacaabay maamulka ganacsiga degmada Laascanood isuduwihii hore ee wasaaradda ganacsiga gobolka Sool oo xilka wareejinayay ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay intii ay xilka hayeen maamulihii hore degmada Faad Maxal Faarax dhammaan saxaafadda waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ama bacdi sida aad ogtihiin halka waxaan u fadhinaa inaan wareejino registration u samayno ganacsatada isla markaana liisankii aanu socodsiino nasiib wanaag liisankii anagoo gacanta kula jirna ayaa waxaa dhacday arrintaasi waa ta keentay in aanu Hargeysa gallo dalakuna bedelo macalish wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga laftigiisu maalmaha kamid anagoo sheekaysana wuxuu yiri faratiriyo waa lagu bedelayaa khaatumiye SSC ma aad iyo khaatumiye SSC midna waa joogayaa dalka iyo dadka waa u shaqeynayaa waxaana diyaar u ahay inaan in badan sii joogo lagaba yaabo inaan siga laftigiisa bedelada waa suuragal isuduwaha cusub ee wasaaradda ganacsiga gobolka Sool ayaa dhankiisa soo dhaweeyay qaabka xilka loogu wareejiyay wuxuuna ka hadlay inuu wax badan ka qaban doono korna u qaadi doono ganacsiga gobolka iyo tan degmadaba waa mahadsantihiin barasaabka maamulayaasha aniga isuduwaha la kala wareegayna labada maamule la kala wareegayo shaqaalaha waa salaamantihiin salaanka bacdi si dardar leh oo shaqo dhaba leh haddii ilaahay idmo ayaanu u gelaynaa hawsha aniga iyo maamulaha degmada xalimo jaamac guuleed iyo anigoo cabdirasaaq maxamed cabdiwaaxid isuduwihiya qoladii hore joogtay shaqaalaha ahayd maamulka haysayna way mahadsan yihiin maamulaha cusub ee ganacsiga degmada Laascanood ayaa dhankeeda ka hadashay hawlaha horyaala waxayna ballan qaaday inay sida ugu wanaagsan ugu shaqeyn doonto degmada waxaan ka salaamayaa mas'uuliyiinta sharafta leh isku wareejinta wasaaradda ganacsiga maanta ka dhacday xafiiska gobolka wasaaradda ganacsiga halkaas ay kala wareegayeen xilka isku duwaha cusub iyo isku duwihii hore wasaaradda ganacsiga maalgashiga iyo maamulihii hore degmada iyo maamulaha cusub waxaan aad u salaaminaa una mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta xilka lagu wareejisay annaguna waxaan ballan qaadanaa xilkana lagu wareejiyay sidoo inaan uga soo baxno xilkasnimo leh wadanimo leh hawsha aanayaan yeelan waana salaamanaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Cabdirashiid Xirsi Dalmar oo xilka u kala wareejinayay isuduwihii hore ee wasaaradda ganacsiga gobolka Sool iyo isuduwaha cusub ayaa kula dardaarmay maamulka cusub ee ganacsiga inay ka shaqeeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiga degmada iyo tan gobolka Sool taariikhdu tahay 6 bishii 6 2015 waxaanu xil wareejin isugu nimid xafiiska wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga gobolka Sool waxaa xilkii lagu wareejiyay isuduwaha cusub cabdirasaaq maxamed cabdiwaaxid waxaa kaloo xilkii maamulaha degmada lagu wareejiyay maamulaha cusub xalimo jaamac guuleed xilkaas ay hore u hayn jireen isuduwihii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Ismaan Saleeman Bootaan iyo maamulihii degmada Laascanood ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Faad Maxamed Faarax xilkaas oo si habsami ah ay ugu wareejinay insha Allah waxaan rajaynaynaa xilkiina cusub in la idin fududeeyo waxaan rajaynaynaa in aad CV-gi iyo maxaa la yiraahdaa wanaagii iyo sharaftii wasaaradda ganacsiga ee gobolka Sool iyo degmadaba inaad dib u soo celisaan oo ay ku soo noqoto yani sidii hore ahaan jirtay oo aad ka saartaan madmadowga waxaan idinku boorinayaa inaad xilkiina si ka xilkasnimo iyo wadaninimo u gudataan